daahir amiin jeesow wuxuu ka mid yahay dadka aan ku tabayno inuu ikraan god geliyey maantana waxaad keentay inaad tiraahdo aniga matalayo diyaan qaadanaya inaad tiraahdo oo habeenimo aad odayaal iyo dad aanan qiimo lahayn oo adigoo kala ah aad kaxaysay oo villa Soomaaliya geysay oo la kulmisay farmaajo waan aragnay arrintan ka bax qofku aaminaysana haba yaraatee ma jirto waxa ku soo haray nin kale oo la yiraahdo Xuseen Dhuubow ayaaba ku jira dadka u ololeynaya in diya la qaato waxa kale oo ku sheegayaa gabar ila dhalatay baa u timid Xuseen Dhuubow berigii uu ikraan la weysanaa oo ugu horeysay waxay tiri war walaalow nin walaala baa taayo waxaad haysataa meel newskii wax laga sheegi kare war gabadha arrimeeda noo geli muxuu ku jawaabay gabadha farmaajo ku maqan tahay aniguna ma raba inaan ka hadlo waa ninka sidaas maantana wuxuu rabaa diyo inuu qaato qofowna waxba u ahayn dad uusan shaqo ku lahayn inuu dhaco oo diyo ku qaato